kulanti waxaan warsan daawadayaal ku soo wada barnaamijka falanqaynta wararka doornimo qodobada aan ku soo qaadana waxa qayb ka noqon doona wixii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya halkaas oo ka dhacay buuq aad u fara badan sidoo kale warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya go'aanka ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka degsatay arintaasi sida laga hormari karo fadadan joogtada ee maalin walba ka dhacda golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoona dadka Soomaaliyeed si weyn kaga niyad jabsan yihiin dawladda Soomaaliya iyo sida qaabka ku wado qodobadaas ayaanu ku falanqayn doonaa hadii ay baraali ka noqdo intuu barnaamijka hawada ku jiro marka la soo dhawaado daawadayaal xarunta baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa ka dhacay arin aad iyo aad u foolxumo ah dadka Soomaaliyeedna indhaheeda aan u qurux badnayn waxaana markii labaad suurtaag xildhibaanada mucaaradka ay ku sameeyeen golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayagu fadhigooda ka yeelan lahaa wax bedelka dastuurka oo dawladda federaalka Soomaaliya ay si weyn markaas gadaal uga riixayso waxaana xildhibaanadani ay maalintii labaad hortaagan yihiin in kala fadhiga baarlamaanku uu caadi u furmo isla markaana laga doodo wax ka bedelka dastuurka oo si weyn khilaaf adag uu kaga taagan yahay maanta gacan ka hadal ayaa ka dhacay waxaana la warinayaa in dhaawacyo xooggan ay soo gaareen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan xildhibaan cadar ayaa la soo warinaya in dhaawac dhinaca lugta oo aad u fudud soo gaaray waxaana la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho mid ka mid ah waxaana halkaas ku booqday qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ugu horeeyana ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre xildhibaan Amiin Jeeso iyo waliba xildhibaano kale oo golaha shacabka ka tirsan oo aad uga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya xubnaha mucaaradkana ka tirsan golaha shacabka maanta si weyn ayaa buuq fara badan ka dhaxdhashay waxaana isku gacan qaaday ciidamada booliska ee la dhigay gudaha baarlamaanka iyo waliba xubnaha kale ee mucaaradka ayagu horay ganaax ugu dhacay loona sheegay inay soo gali kareen golaha shacabka waxaana halkaas intaas wixii ka dambeeyay halkaas ka dhashay gacan ka hadal iyo waliba si weyn oo markaas buuq fara badan ka dhashay idoo markii dambe uusan goluhu safurmin oo halkaas si toos lagu kala tagay suurad qaldan ayay dabcan bixinaysaa wax maanta ka dhacay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoona dad fara badan ay ku tilmaameen arrintan inay tahay mid nasiib darro ah isla markaana aan marna u habboonayn dawladnimada iyo dadka Soomaaliyeed in maalin walba baarlamaanka Soomaaliya ay ayagu matalayay dhammaan dadka Soomaaliyeed ay halkaas ka sameeyeen foodo joogto ah oo ay ka doodayaan wax markiiba laga heshiin karo waxaana arrimaha sida weyn buuq kaga taagan yahay kamid ah oo dadku ay jiha u dhaqaajiyeen ay leeyihiin arrimaha dastuurka oo dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in dhameystirto inta ka hartay muddadeeda halka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayagu mucaarad ku ah arrintaasina si weyn kaga soo horjeeda iyo sidoo kale madasha mustaqbalkuna ay si weyn kaga soo horjeedaan oo ay sheegayaan in guud ahaanba sharci darro ay tahay in golaha shacabka la mariyo dastuurkaasi maadaama afartii cutub hore si qaldan loo marsiiyay oo aan iyadoo loo dhamayn lana qaylinayo aadamada dubaha ugu dhiftay oo si toos ah markaas loo marsiiyay waxayna sheegayaan in kan aan la marsiin doonin ay dhimasho ka xigaan qaarkood sida ay sheegayaan si kasta oo loo ganaaxay hanjabaad kasta loo jeediyay qaarkood waa cili in laadahay oo waxa madaba in ay qaarkood xataa ciidamo ay soo wateen oo xaruntii golaha shacabka qaarkood ay irida ka soo dhigeen waxaana gacan ka hadal aad u xoogan ay dhowr jeer dhaxmareen labadii kulan ugu dambeeyay tan iyo markii dib loo dhigay fasaxa baarlamaanka oo markaas la filayay inuu fasax qaato ilaa bishan Ramadaan iyo bishan Shacbaan guud ahaanba ayaa dib loo dhigay waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay doonaysaa in ka fadhiga baarlamaanka lagu daro 40 maalmood ah si loo dhameystiro arrimaha dastuurka ka dhiman gaar ahaan cutubadiisa 5 ilaa 9 si markaas dadka Soomaaliyeed ay yeeshaan dastuur dhameystiran oo ay isku haleyn karaan isla markaana dastuurku kaga baxo arrimaha ku meel gaarnimada iyo qabyada muddada faraha badan leh oo markaas la daala dhacayay xubnaha mucaaradka iyo xildhibaanada iyo kulli mustaqbalka
qolada la magac baxday oo ayagu si weyn kaga soo horjeedaan waxay ku andacoonayaan in dastuurka wax laga bedelo aysan diidayn hase yeeshee ay si weyn kaga soo horjeedaan qaabka wax looga bedelayo iyo waliba qodobada la qorayo waxayna leeyihiin hal isla arko oo dhammaanba dadka Soomaaliyeed ha laga talageliyo ayay taagan yihiin dawladdu ayada qudheeda waa ay doodaysaa oo waxay leedahay ma diidan in laga wada tashado hal isku yimaado qodobada aad doonaysana wax laga bedelana sheega hase yeeshee meesheedii baa la joogayaa dastuurka 12 ha lagu laabto hal la baabiyo iridaasi irid furan ma ahan ayay dawladdu taagan tahay kuwana waxay leeyihiin afarta cutub hore hal la baabasho wax ka jirana ma laha hadda yaa la soo bilaabo dastuurka qaabka wax looga bedelahay aan la isla aragno dawladdu waxay aaminsan tahay in time far badan ku lumaya arrintaasi oo aan xilligan loo baahan dib lagu laabto sidii afarta cutub hore loo ansixiyana ay saas ansax ku tahay haddana loo baahan yahay baarlamaanka Soomaaliya baas gareeyana afarta cutub oo kale oo qodobkiisa cutubkiisa 5aad ilaa 9aadna ay baas gareeyaan xagga cutubyada kale dhimana gadaal laga dari doono oo baarlamaanku intuusan xirmeynin ka hor la dhameystiri doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markaas gadaal ka tumbaarinaya oo doonaya inta xilkiisa ka dhiman 99 maalmood u dhiman inuu ku dhameystiro dastuurka iyo waxyaalo kale waaweyn markaas uu doonayo inuu xaqiijiyo waxaanu ku dacwoonayaa tan iyo markii uu soo saaray ama qorlihiisa doorashada uu ku jiray waxyaalaha waaweyn uu ku kaamban garinaya ay ahaayeen inuu dhameystirayo dastuurka middan hadda ka shaqeynayaan ay tahay midii loo doortay cid uu kaga haybaysanayna xabayraatay aysan jirin si weyn ayaa markaas dadka Soomaaliyeed arintan ugu jahwareersan yihiin xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayana guud ahaan baqasan waxaana si weyn xiiso ugu yeelay arrimaha ka taagan baarlamaanka xiisadaha kala duwan iyo waliba ismaandhaafka xooggan ee ka taagan golaha shacabka xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa kale ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu taabacsan oo si weyn iskugu diideen wax ka bedelka dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale ayaa si weyn markaas waxay kaga dhigaysaa xaaladda Soomaaliya wajh cusub u yeelaysa waxaana dadka Soomaaliyeed ay si weyn kaga niyad jabsan yihiin dawladnimada Soomaaliya iyo qaabka markaasi ay u shaqeyso waxa leeyahay waxa maanta ka dhacay golaha shacabka wax fiican ma ahayn sawir qaldan ayna dalka ka bixinaysaa inta sayaan ku soo gudbinay dhigaysayaal barnaamijkeena falanqaynta wararka duhurnimo waa Daahir Abshir Xasan sidaas iyo nabadgelyo